amniga dal walba oo koonka ku yaala waxa uu ka mid yahay tirar siyaasadeedkiisa ugu muhiimsan waa qorshe howleedka xukuumad kasta oo dalalkaasi hormuudka u ah waxa lagu qiimeynayo dadkeedu ay eegayaan dunidu ay eegto iyaguna ay isu arkaan inay muhiim u tahay meelmarinta ajandayaashaas dunida mar kale cabsi ayaa ka jirta mase la hubo goorta ay dhici karto waana saansaanta xolka saddexaad ee dunida uu dhici karayo iyadoo dunida guud ahaan hadimooyin kala duwani ay kala kulantay dagaaladii koobaad iyo labaad haddana ma muuqato dal u sacabatumi karaya qaadashada go'aan colaadeed laakiin cidna kama waantoobi doonto inay iska dhiciso haddii uu col uga yimaado caalamka intiisa kale muuqaalka guud ee dunida mar kale waxaa bedelay markii 2 bilood ka hor ruushka uu duulaan toos ah ku qaaday dalka Ukraine wadamo yar oo awood ahaan aad u kooban balse saameyntooda gobolku ay sareyso ayaa dareemay cabsi weyn waana Sweden iyo Finland waxaana markaas kadib soo ifbaxday xilliga ay maangal ka tahay inaysan sugin ruushka handadaadiisa oo ay ku biiri karayaan ka mid noqoshada isbahaysiga difaaca ee NATO waxay aaminsan yihiin in waxa kadan cidla ah dhigay Ukraine ay tahay inay weyse garab military oo weyn maadaama aysan ku jirin isbahaysiga deerka adag lagu tuhmiyo ee quwadaha oo dhami ay ku wada jiraan ee NATO sidaas awgeed mar kale waxaa soo ifbaxaysa rabitaanka iyo doonista midda ah ee ka imaanaysa xukuumadaha Sweden iyo Finland xisbiga ka arrimaya dalka Sweden ee dabcan lagu magacaabo Social Democrats ayaa mar kale sheegay in ay muuqato xilliga ay ku biiri lahaayeen NATO in aysan waqti badan ka dhineen oo ay ku beegan tahay axadda soo socota waxaana taariikhdu ay sheegaysaa inay tahay 15 bisha tan May iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in gabagabo ay ku dhowdahay tashiga iyo tilmaamihii dooniseed ee ku dhisnaa in xukuumaddu ay qaadato go'aanka dhabta ah ee ku aadan sidii ay xagga iyo isbahaysiga NATO ugu biiri lahayd inay tani noqoto ku dhawaaqista rasmiga ah waxay imaanaysaa 2 bilood kadib markii uu dalweynaha ruushka weerar toos ah ku qaaday dalka Ukraine 24 bishii labaad ee sanadkan 2022 taas oo la aaminsan yahay inay keentay inay ammaankooda dib u eegis qoto dheer ku eegaan sidoo kalena ay qaataan go'aamo ka baxaya dhexdhexaad madaxayndaabkooda waa labada dal ee Sweden iyo Finland waxaana ay doonayaan inay hadda mar kale midayaan go'aankooda matalaad ee ku biiritaanka isbahaysiga kan madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto ayaa isna laga dhowrayaa sida ka muuqata xogta warbaahinta gudaha Finland ay ku waramayso inuu ku dhawaaqo taageerada maangalka ah ee uu hayo dalkiisa inuu ku biiro isbahaysiga difaaca ee waqooyiga Atlantika waxaana muuqata in Finland ay xuduud la leedahay Ruushka si la mid ah dalka ay dariska yihiin ee Sweden madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu taageeradiisa ku dhawaaqo bisha tan 12keeda taasoo sida muuqata mar kale kicin doonta tilaabo dib loogu sawirayo qariirada ammaan ee waqooyiga fog ee qaaradda reer Yurub dalka Sweden xogayaha guud ee Social Democratic Party ayaa u sheegay raadiyaha dadweynaha ee Sweden inaysan wali go'aan qayaxan gaarin balse ay go'aan arrintan ka gaarayaan madaxda ugu sareysa xisbiga talada dalkaasi haya oo ah xisbiga ugu ballaaran taariikhda dalka Sweden waxaana muuqata in madaxdu habka fogaan aragga ah mar kale ku kulmayaan iyagoo go'aankani qiimeyn doona maalinta axadda ee soo socota balse wixii siyaasad ammaan ah waa inay sidoo kale go'aan ku yeeshaan dhammaan asxaabta siyaasaddu waxaana ajandaha la wadaagayaa taariikhda 13 bisha tan May 2022 cabsida culays amni ee caalamka ayaa kordhaysa tan iyo markii Moscow ay qaadatay go'aan qaraar oo ay u muuqato inay dhagaha ka fureysatay fariimihii ka imaanayay hogaamiyaasha dunida ee nabadda loogu baaqay codkan inay joojiso laga codsanayo balse Moscow marna ma uu hoggaansamin fariin kasta oo ka timid caalamka ha noqoto tallaabo iyo tilmaan military ama ha noqoto mid dhaqaalaheeda lagu bartilmaameysanayo